السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي ولا لهيك قالي إيه أو شرفت له أو كرامة له. وإذن سلامي إلهي سبحانه وتعالى من لبوءت كسغنتهين. ها إذن كنا بتقليو بإذن الله الكريم. إلهينا ها إذن حفظه. إلهينا فتنت إدباتوين كسعودو. إلهي سبحانه وتعالى هنقدر القاضو بإذن الله الكريم. وبلاشين إلفيس وإذن 10 مقال إذن نسو قرنينين كرالي هذا مشغول كأسكبنا هولها أسكبنا jaamjaama lagu jiro xoogaa waa iska dareemi kartiin iskaraala noqda insha allahu tacaala. waa idin karaali gelinaa in badan aad baana idin jeclahay mana ka daalay inaa idin mahad celiyo in badan ayaa mahadsantihiin maasha allah. commentigiina quruxda badan, liketiina, commentigiina, sheertiina maasha allah. subscribe channelka ha ka iloobin biidn illaahi kariim. haddaa ku cusub tahay, haddaa horey noola joogteena soo dhawow, waa kaaga mahad celinaynaa insha allahu tacaala. adinka madaxiina ayaa wax lagu yahay, haddiina adinka ahayn waxba lama noqon lahayn insha allahu tacaala. dadkana dhiiragelinayo markastaba oon commentigooda iyo hadaladooda farxadda leh lagu dhiiragelinayo waa adinka. walaalo badan ayaa waxay isoo weydiinayeen alaab aan maaldhowta soo geliyo oon ugu talagalay dadka finanka madmadooga ku halaabeen iyo haaraha dadka leh aada iisoo weydiinayay. saliid aan soo geliyey aada iisoo weydiinayeen insha allahu tacaala. saliidda ayaday lambarkeedii intaa idiin soo saari doonaa insha allahu tacaala. lambarka aad ka heleysaan. abaayo idhahaysa bambaasa joogaa waa u jooday. abaayooyin kaloo nairobian joognaa idhahayo waan u jooday insha allahu tacaala. laakiin ma filayo gabadha aan alaabtaas ka qaato ma filayo inay soomaaliya u gudbiso oo soomaaliya u dhiibto. laakiin waa laga yaabaa qof business waaye, qof businessman waaye, waa laga yaabaa inay soo dhiibi karto, in kugu keeni karto meeshiina insha allahu tacaala. haddii aa isla fahantaan insha allahu tacaala oo dalabka la rabo dalab badan u yahay inay soo dhiibi kartaan rajeynaya biidn illaahi kariim. waadna weydiin kartaa insha allah. wasabaa ka weydiin kartaa lambarkeedana insha allah. halkaana idiin soo saari doonaa biidn illaahi kariim ayaa idiin soo saari doonaa. halkaasaa ka qoranaysiin lambarkeeda. sahro ayaa la dhahaa, ayada xataa channel ay leedahay, sahro cali janal ayaa la dhahaa maasha allah. waa abaayo qalbi wanaagsan, waa abaayo qalbi fiican insha allahu tacaala. waadna ka heli doontaan janalkeedana. waxaa ka heleysaan alaabada guduudka lagu baabi'iyo, alaabo fiican ayaa insha allahu tacaala janalkeeda ka heli doontaan sahro biidn illaahi kariim. saa rajeynayo walaalahayga qaaliga iga raali noqda intaa idinka mashquulsanaa insha allahu tacaala. mashquulaa iska jiray. maxaa idin dhahayo kaleeto mashruucyo kale iska jiray oo lagu mashquulsanaa insha allahu tacaala. waa ka raali ahaan doontaan saan rajeynayo biidn illaahi kariim. walaashiin ilfis maxay caawa idin wadaa hergebaa jiro insha allahu tacaala. halaga raali noqdo, yaa idinku ridin bal gacanta afka idinka saaro insha allah. inaa idinku rida marabee waa la kala qaadaa la dhahay, baalka aragti xataa lagu kala qaada ayaa la dhahay. maasha allah. saliidaha ayakee horta saliid waatanaa waatan si fiican ugu joodaa mid waatanaa fitamiin e oil waay, fitamiin e oil wataa mid. saliidan aad bay u fiican tahay wallah maasha allah. waay saliidan habeenkii oo kale markaad seexanayso marso maasha allah. saliidan waa in badan waa isoo xisi doontaan insha allahu tacaala haddaa aragtid biidn illaah. saliidda finanka lagu baabi'inayo oo garanti ah oo finanka kaa suulin doonto waatanaa insha allahu tacaala. waa saliidaas maxaa ku qoran t3 oil. marka t3 afka way ka wada tahay. anigaba hadda t3 halkan waan ku arkay, nairobi ayaan dhaweyta waan ku arkay, laakiin been kuma sheegayo bilxaqiiq. original iyo fake bay kala leedahay saliidan t3 oil. abaayadan marka ayadaa alaabteeda u safarto, ayadaana soo iibsato ma fahantay. waana garantii. hablo badan oo kareemo aan oga maaldhaweyto kareemo aan soo dhigay kasoo iibsada wallaahi aad baan u arkaya ayagoo soo ammaanayo ayaan aada u arkayay maasha allah. waa gabar abaayo qalbi fiican waaye bilxaqiiq. wixii xaqiiqda markaas jirana insha allahu tacaala way kuu sheegi doontaa hadday saliidda tahay. saliidan t3 oil ayaa ku qoran. ayadoo marka waxaa jirto dhaladan ka weyn ayaa jirta, laakiin dhaladan waa dhala yar maarta intay la eg tahay. dhaladan waa dhala yar. labada dhalo marka way isla egyihiinba maba kala weyno. labada dhalo waa kuwa
isleegihiin labadaana ku dhahay qofka isku helo asagii fin iyo madow iyo wasaq waa isdaayeen labadan qofka isku helo insha allahu tacaala tea tree oil markasaanay u yartahay aniga hadda midii aan arkay maal dhowto way weyneed bilxaqiiq waana laga fiicnaa marka gabadhan abaaye maasha allah intii aan bartay alaabadii aan ka gatay walaahi wax igu xumaada ma jiraan maasha allah shay walba sida aan u gato ayuu noqday walaalahayga qaaligay anigana waxaan jeclahay wixii aniga markaas faa'iido ii sameeyo inaan adinkana inkaga faa'iideeyo aad baan u jeclahay sababta ay tahay waa isku leenahay inaa shayga aniga faa'iido ii noqdo adinkana inkaga faa'iideeyo waa wax muhiim ah mideeda kaleeto waxaan rabaa inaan idiin sheego abaayooyin ka cabanaya madowga iyo haaraha abaayaha hadda waxay isoo dhahaysay haarta haddii isoo gelaysaa bay igu dhahday waa waxyar haddii isoo gelaysaa waxaa uga hortegi kartaa baamiye waa kala jeexaysaa miraha waa ka bixinaysaa baamiye qof aan aqoonimaa nagu jiro maya qof soomaaliya oon baamiye garanayn ma jiro meel kasta ha joogo baamiyaa soo qaadaysaa baamiyahaas marka aa soo qaadid waxaa sameynaysaa miraha ayaa ka daadinaysaa baamiyaha miraha markaa ka daadiso qubka kore ayaa kuu soo haray qubka kore waxaa sameynaysaa biyo kulul oo karkaraya ayaa ku dhex ridaysaa qubka biyihii kululaa markaa ku dhex ridid dheecaankii waa ka miiranaya geesaa dhigane biyihii kululaa adi wuxuu la oolayaa 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ugu badnaan 10 daqiiqo ayuu la oolayaa biyaha markaad biyihii dheecaanka ahaa kala baxdo meel geesa ayaa dhiganaysaa intay kaaga qaboobiyaan hadduu fridge kuu dhow yahayna waa gashanaysaa laabas haddii kale saxan yar la dhigo ha kuu qaboobeeno baamiyihii qubkiisii markaad biyihii qandac ahaa ka dhex bixiso intuu 10 daqiiqo la yaala aa ka dhex bixiso waa shiidaysaa baamiyaha si fiican u shiidaysaa waxaa ku daraysaa saliidan vitamin E-gan ayaa ku daraysaa haddii kale waxaa ku daraysaa saliidda afakaadhada laga sameeyo haddaa heli karto haddaa weydid saliidda afakaadhada laga sameeyo saliidan haddaa weydid saliidda beybida oo ciyaalka haddaa weydid saliidda beybida oo ciyaalka saliidda beybida oo ciyaalka ma qofa aqoonina jiro mise sawirkeeda idinto sawirkeeda insha allah waa idin soo tusi doonaa biidni illaahi kariim hoosa idin soo dhigi doonaa insha allah saliiddaas beybida xataa waa ku darsan kartaa waxaa kaloo ku daraysaa hal qaado oo aloe vera gel hal qaado aloe vera gel saliidan vitamin E-gan haddaa hesho 2 dhibcood ama 3 dhibcood yaa ka isticmaalaysaa iyo baamiyihii saddexdaas bisa isku shiidan makiinad caadi ku shiidanaysaa saddexdaas markaa isku shiidid waa marsanaysaa madow iyo wasaq iyo haar waa isdayseen maasha allah wuxuu kuu noqon doonaa ayaan ku dhahay cajab aloe vera gel waat qofaan garanayn ma jiro insha allahu tacaala marka walaalahayga qaaliga waa in kaga faa'iideynayaa biidni illaahi kariim inaad casharkan si fiican uga bogateen aan rajeynayaa saliidahan oo la isoo weydiiyo abaayooyin badan isoo weydiiyeen oo xataa lambaradooda iisoo qoreen ayaa rabay inaan kaga faa'iideeyay insha allahu tacaala abaayada aad ka heli kartaan labadan saliidood iyo aloe vera gelka ayadoo original sax tan xataa original iyo fake kala leedahay naftirkeeda marka originalkeeda ka helaysiin saliidahana originalkooda saxda ka helaysiin waanan hubaa insha allahu tacaala adeegi ka qaadataan inaysa wax ceeba inkaga imaan doonin biidni illaahi kariim waa rajeynayaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq